salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabad daawadayaal meel kasta adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada qodobkani falanqaynta maanta. qodobadani maanta barnaamijkeena kusoo qaadan doono daawadayaal waxaa ka mid ah dacwadii maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed abiib oo dib u dhac ku yimid, dowladda Itoobiya oo war-saxaafadeed soo saartay una dirtay dowladda federaalka Soomaaliya. qodobada iyo qodobo kale ayaanu soo qaadan doonaa daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. daawada waxaan naga xasuusinay haddii aad tahay daawada nagu cusub waxaanu ka codsanaynaa inaad channelkeena subscribe saarto. haddii aad tahay macmiil hore noola sii joogay waxaanu ku leenahay mahadsanid. haddii aynu gudagalno barnaamijkeena qodobka ugu horeeya daawadayaal, sida aynu wada ogsoonnahayba xeer ilaalinta Somaliland ayaa dacwad ku soo eegtay xildhibaan maxamed abiib in maamuska xayuubin lagu sameeyo. haddaba kalfadhi ay yeesheen maanta xildhibaanada baarlamaanka Somaliland ayaa waxaa dib u dhac ku yimid in maamuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan maxamed abiib. haddaba guddida joogtada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa sharci darro ku tilmaamay dacwadda xeer ilaalinta xildhibaan maxamed abiib, waxayna u soo jeediyeen mudanayaasha kale in ay ku raacaan isla markaana cod ku diidaan in xildhibaan maxamed abiib lagu sameeyo maamuska xayuubin. guddiga anshax marinta oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxa uu dhignaa daawadayaal sida tan: marka aanu aragnay qoraalka sumadiisu tahay HJS 278 2024 kuna taariikhaysan 14 bisha 7 2024 ee ay ujeedadiisu ahayd Maxamed Abiib oo xeer ilaaliyaha guud ee qaranku soo gudbiyay golaha wakiilada isla markaana tixraacaya qoraalka sumadiisu tahay GWG 10G24 kuna taariikhaysan 15 bisha 7 2024 ee ay ujeedadiisu tahay soo gudbin. marka aanu aragnay hanaanka mudane ee ka tirsan labada gole ee loogu eegi karo dacwad ciqaabeedka ah kuna faahfaahsan qodobka 79aad fikradiisa labaad ee dastuurka oo u dhigan sida tan: dacwadda dambiga ee lagu soo eedeeyay xubnaha golaha wakiilada waxay ogeysiinayaan in xeer ilaaliyaha guud ka bacdi marka golaha xubinta ama xubnuhu ka tirsan maamuuska kaga xayuubiyaan 3 maalmood laba ahaan tiro guud ee golaha wakiilada iyo qodobada 15aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada xeer 2021 oo la tixraacay isla qodobka dastuurka ee kor ku xusan. marka aanu tixraacnay xilka iyo waajibaadka guddiga inta uu golahu fasaxa ku jiro sida ku tilmaaman qodobka 54aad fikradiisa labaad ee xeer hoosaadka ayaa u dhigan sida tan: gudoomiyaha golaha joogtada ee anshax marinta waxa ay si wada jir ah u wadaan howlaha golaha wakiilada inta uu fasaxa ku jiro. marka aanu tixraacnay qodobka 54aad fikradiisa saddexaad guddiga joogtada ee anshax marinta iyo waajibaadkiisa in ay ku darsadaan isla markaana ay qiimeeyaan asbaabaha keeni kara in mudanuhu ama mudanayaasha ay ku waayaan xubinnimadooda golaha wakiilada si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada. qiimeynta eedaha uu xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay inuu ku kacay mudane maxamed abiib yuusuf uu ku doonayo inuu ku eedeeyo kuwaas oo kale ah: 1. dastuur jabin, falal liddi ku ah xeerka ciidanka qaranka iyo falal liddi ku ah xeerka ciqaabta guud. haddaba waxa ay soo saareen guddida anshax marintu marka aanu aragnay tala bixinta la taliyaha sharci ee golaha wakiilada, warbixinta guddida joogtada ah iyo anshax marinta. guddida joogtada iyo anshax marinta ee golaha wakiilada waxa ay maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha 7 2024 goloweynaha la wadaagaysa warbixinta la xiriirta soo jeedinta maamuska xayuubinta xeer ilaaliyaha guud ee kaga soo dalbaday in maamuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan maxamed abiib. 1. ugu horeyn guddidu waxay golaha la wadaagaysaa 14 bisha 7 2024 uu xeerka ilaaliyaha guud ee golaha wakiiladu uu soo gudbiyay qoraalka sumadiisu kor ku xusan tahay ee ay ujeedadiisu tahay soo jeedinta maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac, isaga oo tixraacaya qodobada 44aad 97aad ee dastuurka iyo qodobada 15aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada. 2. guddidu markay daristay isla markaana qiimeysay eedaha uu xeer ilaaliyaha guud
kusoo sababeeyay in maamuuska lagaga xayuubiyo mudanaha waxa noo cadaatay in aanay ahayn eedo loo sababeyn karo oo ay ka muuqato cadeymo xaqiijinaya in uu xeer ilaaliyaha guud uu diyaarsaday mudanayaasha. Guddidu waxa ay xaqiijinaysaa in mudane kasta oo ka tirsan golaha wakiiladu awood uu leeyahay in uu ka hadlo uu dhaliilo xilgudashada hay'adaha kala duwan ee dawladda isagoo uu gudanaya xilka iyo waajibaadka golaha wakiilada ee ku tilmaaman dastuurka xeerka dhaqangalka ee xeer hoosaadka golaha wakiilada. sidaas awgeed mudanuhu faldambiyeed ku gali maayo isla markaana laguma soo dacweyn karo haddii uu ka hadlo xilgudasho la'aanta dawladda ee uu madaxweynuhu ugu horeeyo. Haddaba guddida iyada oo ka duulaysa asbaabaha kor ku xusan waxa ay mudanayaasha golaha wakiilada u xaqiijinaysaa soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee maamuuska xayuubinta mudane Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac ay tahay mid aan sharci ahayn isla markaana ay ka hor imaanayso mas'uuliyadda xilgudashada ee mudanayaasha ee ku tilmaaman dastuurka xeer hoosaadka golaha wakiilada. Sidaas awgeed waxaan mudanayaasha u soo jeedinaynaa in ay nagu raacaan isla markaana cod ay ku diidaan dacwadda uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland. Haddaba daawadayaal waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii ay xeer ilaaliyuhu soo gudbiyay in xilka xayuubin lagu sameeyo xildhibaan Maxamed Abiib. Haddaba gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegay in dacwadda maamuuska xayuubinta ee xildhibaan Maxamed Abiib dib loo dhigi doono, kaas oo loo fadhiisan doono marka uu goluhu fasaxa ka soo noqdo. wixii ka soo kordha barnaamijkeena soo socda ayaynu daawadayaal idinku soo gudbin doonaa. haddaba qodobkeena xiga haddii aynu u gudubno daawadayaal barnaamijkeena maanta, dowladda Itoobiya ayaa war-saxaafadeed ku soo saartay una dirtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. haddaba war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu dhignaa sida tan: xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxa uu si dhow la socdaa weeraha kicinta ee soo noqnoqday kaasoo ka soo yeedhaya dowladda federaalka Soomaaliya. si ka duwan eedeymaha aan salka lahayn ee dowladda Soomaaliya 30 sano iyo dheeraadka, Itoobiya waxay si hagar la'aan ah ugu tafaxayneed ka shaqaynta xasiloonida dowlad dhiska dadka walaalaha ee Soomaalida oo ay u hurtay in naf iyo maal. Itoobiya waxay haddaba aad uga xun tahay hadallada aan loo meeldegin iyo mas'uuliyad darrada ay ka kaceen marar kala duwan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya si ay muhmal u galiyaan doorka togan ee dowladda Itoobiya ay ku leedahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya, iyadoo oo maanka lagu hayo isku tiirsanaanta xoogan ee mandaqada, xiriirka dhaqanka iyo midka taariikheed ee ku dhidban dhiigga iyo dhidid wadaagga. Itoobiya waxa ay qaadatay in ay si dhag jalaq u siin weydo marin habaabinta ka soo burqanaysa madaxda Soomaaliya. Itoobiya oo ay u muuqato dowdarrada eedeymaha qaawan ee lala daba socdo waxay hadda door bidaysaa inay qaado hiilinka samirka, qalqalaada togan iyo baxnaanada danta guud ee dalkeena ama marnaba aan kala maarmayn. Itoobiya oo hadalkeeda sii wata ayaa waxa ay sheegtay daawadayaal, Itoobiya waxay hoosta ka xariiqaysaa walaaca qotada dheer ee ay ka qabto ka ganacsiga hubka fudud ee ka soo qulqulaya geeska Afrika, loolanka colaadeed ee ka alowsan xeebaha iyo sidoo kale xuduudaha amniga aan gacanta lagu hayn. waxa lama huraan ah in ay dalalka gobolku isku dubaridayaan dadaalkooda ku aadan dagaalanka dambiyada noocan oo kala. Itoobiya waxa ay jeceshahay inay ku celiso kaneeynta dagaalada argagixisada iyo fiditaanka qoryaha yaryar ee sharci darrada ah, hubka fudud iyo waxyaabaha qarxa. haddaba Itoobiya waxa ay sii wadi doontaa isbarbartaagga walaalaha Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo higsiga ah helitaanka nabad waarta, xasilooni, horumar dhaqaale iyo iskaashi gobolka.
war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Addis Ababa. daawadayaal waxaynu intaa ku soo gabagabeynay